koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan har kalamaane war mahaysin aan idin warramo maanta waa 12 bisha mawliid waa dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqaalaha dawladoo dhan waa la wada fasaxay kalamaana maxaa loo fasixi waayay ogoy ambar fasaalikiin sheegay ma abaaya taala mayka erna kalamaana shaqaalo dawlad ma kamid ah zabjoog siyaar joog ilaahay naga dhigo dadaad ku aqli tahan ogahaye warkayga dhegayso hoy maanta oo kale sunnada sida ay tahay waa in la soomo dadna waxay ku jiraan hilib cunow soor cunow cambuul cunow bunka soo boobsi daanka cunow ayay ku jiraan xatrana waa u dheer tahay warwar may sida culimada suufiya la yiraahdo dufankii waa iska dhaafeen maanta oo kale waan is update gareeyeen xafladihii lagu qaban jiray xaafadaha iyo mawlacyada waa la bedelay hadda hoteelada waaweyn lagu qabtaa halkii buni daanka iyo cambuulo laga cuni jirayna shawarma iyo jibsi iyo chicken cunaan oo kaalay kalamaan firqadiimeed miyay noqotay maxay u daliishadeen daanki culugan u daliishadeen war dhegaysannimayo kalamaanay waxba hadaalinin aan war idiin sheego geedda Soomaali maryoolay la yiraahdo qoomiyad iskuma raacsana qabiilna iskuma raacsana qarannimana iskuma raacsana diinna iskuma raacsana danteedana iskuma raacsana dariiqana iskuma raacsana mar qabyaalada isu kala bixisaa marna firqooyin diimeed isu kala bixisaa marna xisbiya been abuuroo nin iyo boorsaysaa isu kala bixisaa waxa qoro isku raacsan tahay inay lacag hesho dhigna daadiso buda una dadnabadeeda ananin yow hortamada isaaqow budkan xaad la sheegtaa madaxa ha kaaga dhace ambadamay qararkee waa inaad dhadhamida war naga tag heesta ha nooga dheelina waa aad ilowde war aduguna waxaad ilowde dhabu fiirso dhab aad ilowde war adiguma waxaad ilowday dheel ma joogte dheel war ma inis dhibtaasan dheera dhuwana dhahyara masku artaana aryaadaha warkaas oo dhan inya ka soo gudubtiin dadkii webigu inya ku biya baxay qaajadu dhuudhuubtay dhulka ku wada dheganay ma ilowdeen beriga war military cunto u qaybinaya dadkeennii webigu ku fatahay anaa daawaday araana la military agaybiyaleelata ulmaadi walka kalsoon adu waayay maandheeskow military wax qaybiyaayo waxaa iigu dambaysay abaartii dabadheer waagii siyaad barra joogay inta waxaa la yidhi allow intii abaartii la ogeed aaranka hal ha ka reebin shaqfir asbax min asubax war berigaas ayagoo looga digaya dadka labadii nina musuq iyo maasuq heesihii la qaadi jira waxaa ka mid ahaa dadka yaga xatiiree xaalufee abaaruhu ay xagalka daacsheen dhuunigooda kii xada xaste ee waxyeelow cudunta iyo beerkiiyo xubnaha iyo dhabarkiiyo halkaa xabadka lagu qabay waxaa kaloo ka mid aheed jaalaley hajaba shaki ya jaalale hajaba shaki ya jaalale jaalaley markaan maqlo gallay cagaartooyaan xasuusanaya arooda aniga jaalaley marka maqlay waxaan xasuustaa jaallow ha jabin jaallow waan kula jirnaa jaallow warwar ma haysiinin xisbigii hanta wadaagga dad maqli jirteen xoogii wadaniyiinta lagu bedelay waagii horena qofkii la soo baxay teestara xisbiga waa laga cabsan jiray haddana waxaa yimid xoog wadaniyiin la yiraahdo oo hataa madaxda degmooyinka ay ka cabsadaan kaalay xoogagan wadaniyiintood sheegaysiin intay jireen inta carrada la rogaayay war mahad salaad wuxuu yidhi xoogagan wadaniyiinta qaar ka mida waa la hubeeyey maandheeyow dawlad ma taqaaniina anaa xubin xisbi ahaa jiriya ii dhegaysta
dawladdii kacaankuba guulwadayaalay lehed calankoodana il gaduudana ku tiilay eedda kuwan calankooda nabadii nololaa ku qoran war waa laga bedelay higsi iyo horumaraa ku qoran war adaan waxba kala ogeyne ammaano iyo adeeg hufanaha ku qoran war ma haysaana wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad ma idaacad u furtay yaa BBC da u furaa jirtay ma mid kale u furaha war Facebook iyo Twitter baa u furana warka naga dhageysta wuxuu yiri 4 sano kasta waxa soo baxa wadaniyiin dawladda dadka ka xigsada nasiib darro se 4 sano ka dambaysa waxay isku bedelaan qaran dumis waana la waayaa meel ay ka baxaan qaarkood ma loo dhashaa wadani mise waa la iska dhigi karaa wadani waa loo dhashaa sideeba laysaga dhigi karaa wadani ma waxaad ka wadiin hadda kuwan wadaniyaa laga dhigay hooy waxaan ku warsadaa haddiise oo wadani as joogo xirsidhuux ka oolahay abwaanka maxaas u jiraya oo muwaadin aawa as dhahay aryaadhaha wadaniyiin waa loo baahan yahay waase hadday webiga beledweyne ka celihayaan waxaana hore loo yidhi dhasa iyo dhamiija iyo dhilqaya dhuudhi iyo boodo dharka mara wixii u galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninka ay ku yaryihiin kama dhammaa baane ninkaan deexdiisu dheergaanay dhibintiir waa dhammaystirta ninkaan deexdiisu dheergaanay dhibintiir waa dhammaystirta war waxaa la yidhi dhibaatada jacaylku way ku dhalan rogtaayo dhaabaca baryana waa la dhuuwataaye war markii afka Soomaaliga lagu baray baada iyo waada ma laga reebo war naga tag waxa uu ilaabay dhawankiyo gamcu misku kay dhaweene wareysaha waa u gafteene dhiwaataane sugeesti ana dhaabaca isyeelay war ku aneesooda waxaan ku soo xasuustay kii yiri geel waa dhareera arigu waa ka daran yahay ariga tag bilowgiyaad ilowday wuxuu dilaacay daabadii naftayda ay habeentaan ka doortay hooy geel waa dhareera runtiisu maxaa loo haystaa warnimayow maanta ciyaal haween wanaagsan maad noqoteen ma yeesu wax wanaagsan aan naqanay waraada war ma haysiine gudoomiyii baarlamaanka xilka laga qaaday Puntland gobolka Sanaagu tagaa la yiri Maleeshiya beeshiisa oo badanaana soo dhawaysaa la yiri maamul goboleed cusub oo dhisi doonaa la yiri marka run ku suga war ma haysan madaxweyne ku-xigeenka Puntland kalaas galeen ma garaasho u furtay laftirkiisa dani waa iskhilaasan yihiin golaha shacabka ee danin inuu mooshinka keena ayaa loo malaynayaa laftigiisuna marka waxuu malaynayaa inuu maamul goboleed dhisi doono war cali khaliif gallayr laftiisu gallayr gareen oo isu bedelaa la yiri ma maamul goboleed cusub buu dhisayaa mase qaatumo cusboonaysiinaya ilaahayow qaatumadan ya qayr ka dhig war nabadii nolol maamul goboleedii hore qaati ka taagan tahay ma ku cusay dhisaysaa war haanga tuusuban bahayaru hayahmaday mahantiyaad haddana bilowda ha kaa kor dhacdee horaa waxaa loo yidhi bungadii la waayo bedelkiis ma la waahaayo hooy ad mijinowdi lamagoodla camal bun iyo haa maxaa isugu jira war ma haysaana waxaa la yidhi maanta dhuusama reeb culimmadii kuma qaban xuskii mawlidka lagu arki jiray masaajidkii jaamacaturaqayna cid luu ahay baa la yidhi marka xereenji keliya waxaa ka yeeraysaa la yidhi shanqar meel dheera oo loo maleeyey inay xadrad tahay ciidankii u dambeeyey oo ku harsanaa labadoodayna waysu soo dhiibeen baa la yidhi marka sheekh shaakir xamar buu imaanayaa baa la yidhiye macallinkuna meeluu aadi doono lama yaqaan baa ayana la yidhiye runku suga intaba horta runku suga mugaad leedihiin wuxuu intay ka yimaadiin ma koratiino war kalamaan waayahan ka sarray keentaa la yidhi kawaabo beerey ninba waa kalkiisaa la yidhi raasmaa waryaa ku dheelin horaa waxaa loo yidhi ninba maalintiisa madfac loo tumaa ninba waayihiisa waala loo tumaahay aheede madfaca nagala tag madaxa ha kaaga dhace war ma haysiine caasimadda labaad ee dalka qatar waa muqdisho war amiir taaniya xagga jooge ma amiir thalitha ay marabo war hadduu joogaaye warka naga sugaa naga dhex geline cayaaraha adduunka ee 22ka oo qatar ka dhici doona ayaa boorarkii hadda lagu xiray muqdisho muga qatar adoo jooga u niyeysamiya war ma waalan tahay Soomaaliya ka qayb gali mayso koobka adduunka see muqdisho boorarkiisa looga suri karaa war ma haysiine afar magaalo waa la mataanay madaxweynayaashooda dayran waa isbedeli karaan waana asmara muqdisho
addis ababa iyo dooxa war taliyii qaybta lixdanaad ee xoogga dalka wuxuu yidhi shaqadeenna waxaan ka gudan weynay xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxayna na leeyihiin mar kasta ciidanna ilaaliyana sii aya kumugga hore hayda kanada u galayaan hadday ilaalan rabaan sarkaalka aan muwaadiniinta iyo xildhibaanada ilaalinayno muxuu yahay war beentaa naga daaya ciidan qoryo sita cidna ma hor istaagi kartee oo ciida kaale ciidanka haddii qaryo sitaan kuwaan doorka nagu dhibi maay naga qabtaan sharcigii siday uga tageen una shishaysiisay in shabaabkii loo jebinayaad shacabka moodda waryaadheen qaranka somalilan waxaan sheegaysaan kama jiraane nagala taga naxligiina war muuse handaraab si uu ictiraaf u raadinaya waa daalay waraa maxaad handaraab u leedahay ninka odaga wareega dan iyo farmaajo maxay ku kala duwan yihiin beerka caarahaydin goys